deeqdan raashinka ah ee maanta la gaarsiiyey qaar ka mid ah dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koofur galbeed waxay ka timid jaaliyada Koofur galbeed ee dalka Norway waxaana loo soo wakiishay xildhibaan Qaasim iyo xildhibaan Cabdirashiid Jilay oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koofur galbeed iyagoona ku wareejiyay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koofur galbeed Abdullaahi Baasto oo isagu ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koofur galbeed xildhibaan Qaasim ayaa ugu horreyn ka hadlay deeqdan iyo halkay ka timid soo jeedaan ba maaragtay dadka baayaha gaarka qaba maanta waxaan soo gaarsiinay deeq oo noogu timid dalka Norway jaaliyada ku sugan dalka Norway reer Koofur galbeed deeqdaasi oo ka kooban maaragtay raashin waxaan soo gaarsiinay dadka baayaha gaarka qaba waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa dadkii walaalaha soo xilqaamay oo u soo donqaday walaalahooda maadaama abaar baan ay jiraan iyo biyo la'aan badan ay jirto marka waxaad aad iyo aad u mahadcelinayaa jaaliyada gudoomiyaha jaaliyada Cabdiraxmaan Cabduqaadir Cali Shalabow oo deeqda naga soo gaarsiiyay dalka Norway oo maaragtay wajiga koowaad ah ayagoo ka jawaabaya maaragtay baaqi dowladda Koofur galbeed in loo gurmado dadka walaalahooda ee abaaraha saameeyay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koofur galbeed Abdullaahi Baasto ayaa ka mahadceliyay deeqda isagoo ugu baaqay jaaliyadaha kale inay ka qayb qaataan samata bixinta dadka tabaalaysan laano waxay tahay dadkani waa dadkii koowaad ee loo gurman lahay waa dad naafo ah waa dad lugaha iyo gacmaha indhaha la gurmadkii anoo ka tirsan guddigii gurmadka shaqadii ugu horeysay soo wakiishteen saaxiibaday anigoo kamid ah tiimka guddiga gurmadka abaaraha shaqadii ugu horeysay waxaan ku qabanay samafala Qaasim howsha noo dirsaday oo saakay meeshan nagula joogo asoo wakiilka ah jaaliyada asiga xildhibaanka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadcelsho madaxweynaha dowlad goboleedka Koofur galbeed oo u istaagay una magacaabay guddi ka kooban golo wasiiro 11 wasiir sidii lagu samata bixin lahaa baahida iyo dhibaatada iyo biilaanta nagu soo fool leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bareenaa inuu roob degdeg ah noo keeno labada arrimood oo noogu darno haysto waa biyo la'aan iyo wax cunto marka haddii roob Ilaahayna siiyo labadaas waa ka maarmeynaa waxaan rabaa inaan u mahadcelsho bahda wariyaasha saaxiibadeen Siraaji iyo tiimka kale oo saaka ayagana Koofur galbeed ka socdo noola joogo Siraaji Shaysaaq warbaahinta qaranka Baydhabo.